magaalada Boorame xarunta gobolka Nowdal waxaa maanta ka dhacday xaflad si weyn loo soo abaabulay oo ay ku qalin jabinayeen arday baratay culuumta diinta islaamka iyo luqadda carabiga kana qalin jabisay macadka culuumta diinta islaamka iyo barashada luqadda carabiga ee Saylac ee ku yaala magaalada Boorama. madashan waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Nowdal, salaadiin, culumaaudiin, waxgarad, aqoon-yahano iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan Boorama. waxaana ugu horeen ka hadlay maamulaha macadkan barashada culuumta diinta islaamka iyo luqadda carabiga Sheekh Xasan Khayre Dirir waxa uuna ka sheekeeyay taariikhdii uu macadkan soo maray iyo ardayda maanta ka qalin jabinaysa. sanadii shanaad maraya uu shanjiisaday waxa ka baxay marka dadaalada iminka baxaysa lagu daro 3 dafcadood. ardayda ka taqriishay waxay noqonaysaa 7 arday koob iyo soddon baxaya iminkan oo iminka shahaadada qaadanaya 8 kan hore qaatay iyo 17 arday oo kasii horeeyay wali iyo 7 arday wey. ardayda macadka iminka tirahaan dhigata waa 300 iyo ziyaado isku jira habla iyo inamo hooyooyin iyo aabbayaal. guud ahaanna waxaa tiro badan haweenkaa tiro badan oo dumarka tiradooda 170 sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolka Nowdal mudane aadan faarax maxamuud oo isna madashan goobjoog ka ahaa ayaa waxa uu hadalo dardaarana u jeediyay ardaydan 31 gaaraya ee maanta ka qalin jabiyay macadkan barashada culuumta islaamka iyo luqadda carabiga. ardayda waxaan aad iyo aad hadda maanta qalin jabinaysaa u leeyahay suldaan cabdiraxmaan jaamac dhawel, suldaan ibraahim jaamac samatar iyo suldaan maxamed cabdi oo iyaguna ka mid ahaa salaadiintii lagu casuumay madashan ayaa waxa ay hadallo dhiirigelina u jeediyeen maamulka iyo macallimiinta macadkan barashada culuumta islaamka iyo luqadda carabiga ee Saylac, waxayna kula dardaarmeen inay hore u sii wadaan howlahan baaxadda leh ay wadaan. gudoomiyaha gobolka Nowdal Axmed Xadi Sidci oo gabagabadii madashan hadallo ka jeediyey ayaa waxa uu ka hadlay arrimo dhowr ah waxaana hadalladiisa ka mid ahaa waxaad nasiib ku leedihiin in maanta magaaladaadii adoon ka dhaqaaqay aad ilaa PhD aad dhiganayso. wax weyn fursad ilaahay siiyey oo aynaynu ku xamdinaqno oo aynaynu maxay ahayd runtii aynu ku dadaalo ilaahayna ku xamdinaqno dadkeennana aanu faagin diintu iyo sharciyadda islaamku waxyaabaha iminka duruufaha dhibka iska dhibaatooyinka ee bulshada haysta oo meelaha qaarkood laga faa'iidaysanayo oo marmo la gelinayo oo ummaddeena waxaa u badnay in xaggaasi sidii ay culimadu u sheegtay inay nagu yaran baa maxay ahayd sidaa loo lahaa carabiga waa lagu qarxistaaya maxay ahayd. cabdifataax axmed, Had Wanaag News, magaalada Boorama.